halka jannadana uu nabigu yiri ramadaan hadii uu yimaado ayaa albaabada jannada la furaa buu nabigu yiri alayhi salaatu wasalaam bimaana waa maxay kii jannad doonayo albaabadii jannada waa lagu furay jannada soo gal oo hadii bishaas aad ka faa'iideysatid waxaad ehel u noqonaysaa inaad noqoto dadka jannada galaya jannada loo furay allah inaga dhigo wasiqa alladheena taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin wasiqa alladheena taqaw rabbahum ila aljannati zumara ilaahay ba quraanka inoogu sheegay fi aakhir surati az-zumar dadka mutaqiinta adduunka dusheeda ilaahay ka baqayay jannada xaggeega ayaa degdeg si degdeg loogu kaxayn doonaa ilaahay yiri iyaka oo maaragtana koox u socda sida u kala fadli badnaayeen isku acmaal ahaayeen ayaa la isku xidhxidhayaa dadna jannada xaggeega ayay malaa'iktu u kaxaynaysaa markay jannada irideeda hor yimaadiin ayaa ilaahay wa futihat abwaabuha wawgaas wuxuu macnaynayaa uu sheegayaa albaabada jannadu ma furnee markay irida jannada ay soo joogsadaan baa albaabada loo furayaa wa qaala lahum khazanatuha malaa'iktii jannada ilaalinaysana waxay odhan doonaan salaamun calaykum tibtum fadkhuluuha khaalidiin nabadgelya dushiina ahaatee albaabadii jannadana waa ka hadda laynii furee waad wanaagsanaateeno waad mutaysateen jannade gala oo jannadii waa taasoo ku waarya baa la odhan doonaa waa tahay jannadii caamir bin cabdilqays ayuu ahaa ninkaas waa ninkii maalintuu dhimanayay ayuu ooyey baa lagu yidhi markaasaa loo maleeyay inuu dhimashada ka baqaayo markaasaa lagu yidhi maxaad la ooyeysaa nin caabida oo magaalada dhan ee basro la yidhaa caabidkeygaa lagu odhan jiray intaasoo jihaadna waad ka qayb gasho diinta halgankeyga meel fiican baad ka gaadhee maxaad la ooyeysaa baa lagu yidhi laba shayba lama ooyey buuhi horta iga qora laakiin laba camal oo maanta iga go'aya oo dib dambe u arkayn baan la ooyayaa buu ku yidhi labadaan la ooyin baan nii sheegi buu yidhi cabsi aan aakhirada ka baqaayo lama ooyaayo adduunyadan aan ka tagaaya jacaylo aanu qabana lama ooyine laakiin laba camal oo adduunka dusheeda aan ku qaban jiray ayay haddaan maanta aan dhinta iga go'aysay buuhi waa labadee assawmu fi sayfi waalqiyaamu fi shitaa xilliga dhulku uu kulul yahay soonka aan soomi jiray iyo jiilaalka dhaxanta salaataleylka biyaha qabow aan ku weysaysanaya dhaxanta dhexdeeda aan ku tukanayay labada camal baa iga go'ayso dib dambaan u arkayno labada aan la ooyay waa labadaas ogaada buu ku yidhi وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا الجنة بربكم تدخلوا جنة ربكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله إلهي بانكم هذين bishan barakaysan run ahaantii waa mawsimu lxasanaat qolo walba mawsim bay leedahay ganacsatadu mawsim bay leedahay xilliga ay dadka ganacsatadu ay lacagaystaan waa xilliyada maaragtaan ee ciidaha siyaasiyiintuna waxay leeyihiin mawsim iyakuna siyaasadooda waxay meelaha la qeylqeyliyaan marka doorashadu ay soo dhowaato qolo walba badeecadda ay haysato xilli ay dadka u bandhigta ayaa jira
tujaartu badeecadooda xilligan ay soo saaraan. siyaasiyiintuna badeecadooda waxay keenaan xilliga siyaasaddu ay dhowdahay, doorashadu ay soo dhowaato. ayuu nin walba fikraddiisa hadday qaldan tahay hadday saxsan tahayba dadka marka ayuu u bandhigaay uu ka iibiyaa. waa kuwa meelaha ka qeylqeyliyad aragteen. dadka xoolo dhaqataduna iyakuna mawsim bay leeyihiin. markay maqlaan ciiddii baa soo dhowaatay, khaasatan ciidda carafo ama xoolihii wadannada carabta loo dhoofinayay baa la furay. markay maqlaan iyakuna badeecadooda markaasay bannaanka soo dhigaan. bisha ramadaanna waxa weeyaan waa mawsim iyadana la yidhaahdo dadka ilaahay doonaya inay u dhowaadaan, dadka doonaya aakhirada inay camirtaan, dadka doonaya ilaahay inay raalli geliyaan. mawsimkoogu iyakuna waa bisha ramadaan weeyaan. laanna waa bil aad u barakaysan weeyaan, oo ilaahay baa casa wajalla qur-aankiisa ku sheegay inay bishani ay bilaha ka duwan tahay. waxay kaga duwan tahay bilaha soonka waxaa laga dhaxlaa alla ka cabsi, taqwad. bishani bilaha waxay kaga duwan tahay qur-aanka kariimku bisha ramadaan dhexdeeduuna soo degay. bishani bilaha waxay kaga duwan tahay habeen leylatulqadriya bay xambaarsan tahay kuu wadaa. bishani bilaha waxay kaga duwan tahay waa bil habeen walba ilaahay casa wajalla uu leeyahay addoommo uu naarta ku xoreeyo. bishani bilaha waxay kaga duwan tahay ducada muuminka ayaa la aqbalaa buu nebigu yihi. xilliga uu afturku dhow yahay saa'imku waxa uu leeyahay duco la aqbalay xilliga ducaysta oo baahidiina ilaahay u sheegta. bishani bilaha waxay kaga duwan tahay waa kii nebigeennu lahaa calayhi salaatu wassalaam, cumratu fii ramadaana tacdilu xajatan maciya. bisha ramadaan dhexdeeda ninka cimraysta, cimrada bisha ramadaan dhexdeeda la cimraysan waxay u dhigantaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam xaj aniga layla xajiyo oo kale u dhigantaa buu rasuulku yidhi. bishani bilaha waxay kaga duwan tahay oo nebigeennu sheegay calayhi salaatu wasalaam, ramadaan haddii uu yimaado albaabada naarahana waa la xidhaa, albaabada jannadana waa la furaa, maradatu shayaatiinna waa la xidhaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. ramadaan haddii uu yimaado albaabada naaraha waa la xidhi. oo waxaa laga fahmayaa xadiiska waa maxay? 11 bilood oo kale oo dhan naarta albaabadeedu way furan yihiin oo way iska ballaqan yihiin. halka jannadana uu nebigu yihi ramadaan haddii uu yimaado ayaa albaabada jannada la furaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. bimacnaa waa maxay? kii janno doonayow albaabadii jannada waa lagu furay, jannada soo gal. oo haddii bishaas aad ka faa'iidaysatid waxaad ehel u noqonaysaa inaad noqoto dadka jannada galaayo jannada loo furay. allah inaga dhigo. wasiiqa aladiina ittaqow rabbahum ila aljannati zumara xataa idaa jaa'uuha wafutixat abwaabuha waqaala lahum khazanatuha salaamun calaykum tibtum fadkhuluuha khaalidiin. wasiiqa aladiina ittaqow rabbahum ila aljannati zumara. ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegay fii awaakhiri suurati zumar dadka mutaqiinta ee adduunka dusheeda ilaahay ka baqaayay jannada xaggeega ayaa degdeg si degdega loogu kaxayn doonaa baa ilaahay yidhi. iyaka oo maaragtana koox u socda siday u kala fadli badnaayeen iskugu acmaal ahaayeen ayaa la yskugu xidhxidhayaa. deedna jannada xaggeega ayay malaa'igtu u kaxaynaysaa. markay jannada iriddeeda hor yimaadiin ayaa ilaahay yidhi wafutixat abwaabuha. waawgaasi wuxuu macnaynayaa uu sheegayaa albaabada jannadu ma furnee, markay iridda jannada ay soo joogsadaan baa albaabada loo furayaa. wa qaala lahum khazanatuha. malaa'igtii jannada ilaalinaysana waxay odhan doonaan salaamun calaykum tibtum fadkhuluuha khaalidiin. nabadgelya dushiinna ahaatee albaabadii jannadana waa kaa hadda laynii furee, waad wanaagsanaateeno waad mutaysateen jannadee, gala oo jannadii waa taasoo ku waarya baa la odhan doonaa, waa taayee jannadii. allah inaga dhigo. marka ramadaan haddii uu yimaado buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam albaabada jannada ayaa la furayaa. bimacnaa
كوبية تبانك بلاد وكلنا جنة الباب دي وحرينيهين لماذا ودار لوجو تلقلي إن دتك متقين تلقوا أبا المريو إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إن للمتقين في جنات وعيون إلهي القرآن كأوكاقور رمي مركا دتك أدونك دوشيد إلهي كقبقى متقين الله كعبسك له إن الجنة أي متيستين با إلهي القرآن كأوكوشيغي مركا هدي الربضان مادنا وحاو النبي قليهي الباب دي النارهنا والله حريا وكوبية تبانك بلاد وكلا النار الباب دي ويفرنيدو بمعنى دتك النار تكوه بنيا بدن ويان والعياذ بالله دتك لمنايا أهل النار كأيا كتير بدن أهل الجنة دتك جنة قال يانا ويكوبيهين أبدا إلهينا هاي نقدر هو جنة متست لأن حريست إلهي يكون متست marka bishan maadaama albaabadii jannada lagu furay de waxa ku hadhay in lagu yiraahdo soo gal saad ku soo galaysaa marka jannadii waxaad ku soo galaysaa acmaashii jannada aad ku mutaysan lahayd baa bishan in la qabto ayaa haboon marka acmaal aljanna wabil mid dawaaqa xagga ilaahay ka dhawaaqayo odhanaya yaa baaqaya alkhayri aqbil markii khayrka jeclaayo khayr doonow bishii khayrka waatan ku soo qaabishay adiguna soo qaabil buu ku leeyahay ha ka jeesan aqbil bimacnaa waa maxay iyadiina way timid adiguna ku soo noqo oo ka horkaalay isku yimaada ويا باقي الشر أقصر بوليا كي دنبغي معاصد يا فجورك يا دنبغي يا شرك بدنايو بشان ماها بش إله إلا عاسينا يه كقابس بوليا يسونا كقابس كدا أجركنا ومضاعف معاصدنا ومضاعف أجر رضي هرؤك وياهي شرك يا دنب يا حمانتا أتسميس بشر رمضان إحدى يدنا ذنوبتي هر يدنا وكدم بوينتي وقوب malagaasaa markaa odhanaya warkii khayrka doonayo waatan bishii khayrku iyo soo qaabil soonka soo qaabil qur'aan akhriska soo qaabil salaada taraawiixda soo qaabil zakada iyo sadaqada la bixideeda soo qaabil qaraabada xidhiidhinteeda soo qaabil sukuudka badso sukuud carabkaaga ilaali iska wasakhayn soonkaaga bishani waa bishii khayrka dadka ahlullaahiga ee muuminiinta bishani waa bishii khayrka ka faa'iideysanayeen khayrka soo qaabil buu leeyahay waa waqti qiimo badan weeyaan bisha ramadaan waqtiguna waa tharwada qofka bini aadanka xoolahaaga iyo waqtiga ayaa xoolaha ka qiimo badan baa la yidhi dhaqaalahaaga ood ku ciyaartaa waxa ka dhib badan waqtigaaga ood ku ciyaarta ka dhib badan lacagta haddaad maanta daadaadisid oo si malaa yacni ay kugu dhaafto berritoola waxaa laga yaabaa lacag intaa in ka badan in ilaahay meel kale kaa soo geliyaba laakiin daqiiqadda maanta kaa tagtay kugu soo noqoni mayso maanta hadday ku dhaafto berri maanta ma soo noqon doonto ogow sabt jimco weeyaan maanta jimcaha hadduu kaa tago jimcaha soo socda jimcihii tagay maaha waa jimco kaloo fresh oo cusub weeyaan waagii barye buu yidhi xasan albasri raximahullah waagii barye baa cadceeddu saddex eray bay tidhaahdaa ana yowmun jadiid anu maalin jadiida ayaan ahay oo cusub wa calaa camalika shahiid camalkaad qabanaysana marag baan ka ahay oo markhaati baan ka ahay ilaa qiyaamahana anigu kugu soo noqoni maayo waxaad qabsataad helaysaaye iga faa'iidaysa bay tidhahdaa maalintu إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما maalinta iyo habeenku adeeg ka go'an yihiin adiguna ka faa'iideyso oo waqtigaaga hadayicin bisha ramadaan ilaahayna soo gaarsiiyay inagoo nabad hayna oo caafimaad hayna oo amni arsaaqadna hayna oo dad muslimiina waliba ilaahay inaga dhigay inaan ilaahay ugu mahadino weeyaan la nudayic
salaf waxay bisha Ramadaan way sugu jireen bisha Ramadaan markay ilaahay uu la kula siiyana waxay tamanin jireen sanadka oo dhan in Ramadaan looga dhigi lahaa bay tamanin jireen laana waa bishii dambi dhaafka waa bishii toobadkeenka waa bishii xasanaadka iyo ajarka la labalaabayay waa bishii naarka xoreynta waa bishii ducada la aqbalayay ducada waa la aqbalaa waa bil caafimaad wada caafimaad bay wadataa caafimaad xanuuna dhakhtaradu ay daweyn kari waayaan ayaa bisha Ramadaan qofka Soomaaliyeed jirkiisa kaga saaraa dhakhtarada adduunka u qiimo badan xanuuna ay dawadooda ay waayeen ayaa laga helay Ramadaanka inay ku dhex jirto markaas gaaladii cadaydii ku madoobeedba ay leeyihiin waxa la isku raacay 3 maalmood hadii bil walba laga soomo xanuunada maanta adduunka dadka naafeeyay ilaahay dadka waa ka qaadi bay ku leeyihiin kansarka kamid ah wal ciyaad billah xanuunkan kansarka sarataanka la yiraahdo daawadiisa waxa la sheegay inuu yahay soon hadii la soomo caloosha la gaajaysiiyo xanuunkaasi tilqaa'iyan iska dhiman oo u baxaya yuriidu Allahu bikum al-yusra ilaahay marka uu ku leeyahay waxaan soonka inagu farad yeelay maaha culaysanaan nisaarayna hamoodine fudayd baan la doonaynaa bimaana waxa weeyaan amalkaad qabanaysaan ajarkiisa waa niin laba laabayna caafimaad baad ka helaysaan ilaahay baad ugu dhawaanaysaan naar baa laynaga xoreynaya toobada laynaga aqbalaya naftaad ku tarbiyadeynaysaan taqwad baa iniga ziyaadaysa waa madrasatu taqwa bisha Ramadaan waa taqwada laga bartaa taqwada bisha Ramadaan hanuunka ayaa laga bartaa isbedel baa laga haraa isbedel qabil khayrkeega ay xambaarsan tahay laakiin Allah ina garasi amiin dhahada Allah ina darasi waxa ayaan daraa ninka bisha Ramadaan u soo gashay ka faa'iideysan waayo man hurima khayraha faqad hurim nabiga bisha khayrka ay xambaarsan tahay iyo habeenkeeda leelatul qadarku khayrka uu xambaarsan yahay qofka laga xarimay waa mahruum buu nabiga khayr dhamaantii qofka waa laga xarimay buu nabiga sallallahu alayhi wasallam markaas seen bishan uga faa'iideysanaa markaas waa bisha Ramadaan waxaan kaga faa'iideysanaynaa waa hadii aan hadigii nabigeena aan raacno alayhi salaatu wasalaam tabic rasuulkeennii baan raacaynaa alayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii baan raacaynaa dadkii wanaagsanaa siiradoodii baan raacaynaa oo leenahay maxay bisha Ramadaan qaban jireen amalka ugu badan ee nabigeenu Ramadaanka uu qaban jiray waa maxay sadaqadana uu bixin jiray baa la yiri quraankan uu akhrin jiray inta badan dabayl la diray oo ummad loo diray inay soo halaagto siday u degdegto ayuu nabigu bisha Ramadaan khayrka uga degdeg badnaa waxa uu nabiga waliba inta badan lagu amaanay bisha Ramadaan uu qaban jiray waa maxay waa quraanka lianna bishan waa bisha quraanku uu soo degay weeyaan waliba habeen leelatul qadriya ayaa ilaahay quraanka inoo soo dejiyay من لوح المحفوظ بملائكته أي كسر نغليين إلى بيت العز وصمد أدون كدوشي ذا كويالا أي ملائكته أي كانين بلديكو حنبارسا ملائكته هبينك قرآن كسر نغلي السينة إلهي واكا كشاك كلا إنه تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وقرآن كاس معاني داس حنبارسا التذكرة دا إيوانا دا موعدة دا ee wixii adduunyadan iyo aakhira ku anfacaya ku sheegaya ayaa ilaahay leeyahay malaa'iktii soo xambaartay ee quraanka soo naqlisay baa la yiri waa malaa'ik mutiiciin oo ilaahay adeecsan baariyiina weeyaan almaahiru bil quraan qofka quraanka xariifka ku ah ee quraanka xafidsan ee quraanka akhriyana maalinka qiyaamaha malaa'iktaas la soo baxaya nabigu waa kii xadiis ku lahaa sallallahu alayhi wasallam quraanka ay soo naqliyeen ay malaa'iktaas sharaf ku yeesheen فلذلك هو قرآن وهبانك قرآنك وبش قرآنك كريم كلا صوت الجيه ويا بشن وبش قرآنك قرآن مركايان قيل وقال وقت جينا يانا كل من
أئمة الحديث سيدا إمام شافعي وقال الله نحارسته وحال شيء فقيه هذه الأمة بالشهر رمضان لبي اللحدا جر ما الله شيء مثل صدح يا اللحدا جر بقرانك ختم جريب الليل لبي اللحدا جر بمعنى ما لنتين مر بقرانك ختم أي ولي جزء دور جزء ديرادا وراعينا هذا كنا هل مر بختم أي ما لنتنا أنت نوم بيهيد نزياد سنين هذا كنا أنت نوم بوهاي زيادة ما هين لكن إنك وقت جينا بركة ما كبحنا مانت أيك وقت جوجو بركة لها وقت جاي كل حساب تميل عامر بن عبد القيس رحمه الله أيو إن كل الشيخ يجوكس مركز عاد يجوجها كوجوكس دي برجع ساعد لأجنا بدتكم ما هي سنة لكن وحال أجا وقت قال أجا جلسة عاد أبين كنا حد قال أجا جلسة والعداد يجوجي كل كان عداد يقبضه يكون جوكسن بمعنى وقت جا يقول السعودية هذا وقت جا يجوجي سيدوا كون جوكسن ويان هذيك لما جوكسن كرو إنك أنا ما أنت وحين نجمر إنسان نرانا هاي وقت جا باس هل كيف سود الله بله مري وقت جوا ثروة لا هيكوسي نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ والنبي يقول عليه الصلاة والسلام لما النعمة دودو وين والنبي يقول ودتك إنتو دبنا ما ركتان أي كدجن يهين ومعناه غفلة أي كجسوا يهين ولا بديه وفراغ أنت تقعن بنا أنت هاي وأنت النوش هاي بالوجه ده أنت النوش هاي فراغ بعد هاي ستاي أقول ما أنت فقير كأتهين فراغ بعد هاي ستا أنت الدنيا ده أتهين فراغ بعد هاي ستا هذا هذا فقير هذا القرآن آخرين كري ويدو ما أنت مال قبل نقطة القرآن آخرين كري اللي ذات قاعد بيده هيستوي مشغولانه هذا الدنيا هدي أدمار ركتاني القرآن كأوفر يسوي ذات ختم ويدو مالي والبا أما تضباطك أما شنتي عيش أما توقع عيش هتكون ختم ويدو ما مرك إسلامي أوبدي مسؤولية أي كفوشو من القرآن آخرين كري دونتا هذا هو فراغ يسوي ما أنت النول الدنيا الجوجا هذا كفى يسوي ذا بشهر رمضان يا عبادة طاعة إلهي أذكرين ويدو ما مرك قبرك اللي قويان عبادة سندونتا مي دار العمل وهل كان قبرك دار العمل ماها قبرك هو دار الجزاء دار تعب المرين توين قبرك هل كان دار العمل لهذا كان لبضع نعمل وضع إلهي نسيي يانا ضيعن لا بشيء بينكم أنتم والله دقالنا وقت قصير والله دقالنا مرنا وان عينا مرنا واسود الله ده كان وقت مرنا ويدلان مرنا ويأفلق هذيان وقت مركا دليسيد واحد وقاتا يا فريسي يركير فريسادر وقت مركا الليلة هي هالصوت دلو واحد كده قالتا يا رئيس المال كاجيب دليسا إمام ابن قيم الجوزي الله حريسته بايدي وقت أول الضيعة وحاو كد أدقي هاي دمشق وكدريح إن دمتو يين الوقت قاعد ضيعدي وحاضرا إن الوقت قاعد ضيعدي لما وحيد وقت قاعد ضيعدي وقت قاعد هذا ضيعدي وحي كده أنت هاي إلهي كو أبو ريبات كقاضي آخر هذه نواد ضيعده بكلا ده هاي هي كده أنت هاي لكن هذا دمتد الدنيا دي بات كقاضي إلهي كما تقولين موت الدنيا دي كقويا لكن وقت قاعد ضيعدي سو إلهي آخر هذه بكقوين يا يوغو مرنا إنك وقتك ما أنت وان دلينا وأنا كلا ما أنت وقتك هل كان اسكو صور دافنا وقتك هل كان كسو دلا مرنا وحاننا أنا وقتك نبيه عنا صدايق لعنيك وماشى إلى حي ولها حديث القدس يؤذيني ابن آدم ولم يكن له ذلك يصب الدهر وأنا الدهر والأمر بيدي أقلب الليل والنهار بإلى حي إن آدم بإدبايا وصدقين آدم إدبايا زمن كي أفلقادين يان با إلهي زمن كمركي أفلقادين أمركو أنو قعنت إذا كجراي زمن ماها وحا وحبب بدلي أنيقا أيا حالات كبني آدم كالله سو درس أيا أنيقا كان يبدل يا با إلهي زمن كأفلقادين زمن كوا إلهي زمن كوا أيو والله dadka inta badan hadaad wareysato waqtigaas ay wada haystaan ilaa waqtigaas sida ay galay
waqtiga halkaa i dhigay waqtiga iga jeestay ree hebel waqtiga Allah haya maanta waa waqtigoogii waqtiga ii kaa qabtay war ma yidhahdaan yasubu dah zamankay aflagaadayn ilaahay baa zamanku caayaya zaman meesha ma jire amarku xaggaygu ka imanaya baa ilaahay oo wixii xaalaad inala soo darsaaya axwaal inagu imanaysa anaa keenaya zamanku ma keena baa ilaahay anaa keenaya abaar hadday timaado ilaahay baa qadaray barwaaqa hadday dhacdana ilaahay baa qadaray meel hadday gubato ilaahay baa qadaray dad hadday caydhoobaan ilaahay baa u qadaray dad hadday maalqabeeno noqdaan ilaahay baa maalqabeennada ka dhigay xaalaad adiga isku nisbee wixii dhibaato kugula soo dirista aduu isku nisbee laakiin waxaad ogaataa shar iyo khayr waxa uu ka imanaya waa xagga ilaahay marka marna dadku zamankay aflagaadaynayaan marna waxay leeyihiin zamanka halkeen ku soo dilaa zamanka haddaad aflagaadayso waxay ka dhigan tahay allihii ku abuuray baad afka ku taagaysaa markaad leedahay zamanka halkeen isku soo dhaafiyaa oo wakhtiga halkeen ku soo qaadanaa markaad leedahayna waxay ka dhigan tahay tharwadii ilaahay ku siiyey ayaad cidla ku soo daadinaysaa cid kaa qabanaysana ma haysatid imaam xasan albasri allah u naxariistay baa odhan jiray addoonka ilaahay inuu u cadhooday waxaa lagu gartaa wakhtigiisa ka dayacma buu yidhi haddaad aragto addoon wakhtigiisu dayacan yahay mar walba dayac waa maxay waa markuu qofku ku jiro laa yacni waa maxay waa markuu qofku ku dhex jiro shaqo aakhiradiisana aan waxba ka taraynin adduunyadiisana aan waxba ka taraynin shaqadaa laa yacni baa la yidhahdaa qof 24 saac laa yacni ku dhex jira haddaad aragto waxay ka dhigan tahay addoonka ilaahay baa u cadhoonaya ka dhigan tahay waa calaamaadkan lagu garto inuu ilaahay addoonka u cadhaysan yahay haddaad aragta maxay addoon wakhtigiisu mar walba uu dayacan yahay meel dayacan buu fadhiyaa dad dayacmay buu la socdaa wax dayacan buu wakhtigiisa ku bixinayaa dad xun buu la saaxiibayaa meesha uu fadhiya ma garanayn waxay tahay uu dayacan yahay markaas addoonka ilaahay uu khayr u la rabo uu raalli uu ka yahayna waxaa lagu gartaa bay culimmadu yidhaahdeen meel wanaagsan baa ilaahay mar walba wakhtigiisa ku bixiyaa hebel masaajidku xilliga jooga hebel qur'aan buu akhrisanayaa hebel dacwadiyo diintu ka shaqaynaya hebel xaramkuu jiraa hebel aabbihii hooyadii buu u adeegayaa hebel qaraabadiisiibuu maanta wuxuu geeyu u soo adeegaya u xidhiidhinayaa hebel madrasaduu macallinka iyo ummaddu cilmiga u dhigaa hebel masaajidka xilliga laga helo ay maqaaxi lagama helo haddaad aragto qof khayr mar walba ku mashquulsan waxay ka dhigan tahay qofka ilaahay baa khayr la doonaya ilaahay khayrka inoo dhibiray allah inoo macaanay khayrka allah inoo macaanay lidaalika culimmadii islaamka wakhtigay garteen qiimihiisa caamir bin cabdilqays ayuu ahaa ninkaas waa ninkii maalintuu dhimanayey ayuu ooyey baa lagu yidhi markaasaa loo maleeyey inuu dhimashada ka baqaayo markaasaa lagu yidhi maxaad la ooyeysaa nin caabida oo magaalada dhan ee basro la yidhaha caabidkaygaa lagu odhan jiree intaasoo jihaadna waad ka qayb gasho diinta halgankeega meel fiican baad ka gaadhee maxaad la ooyeysaa baa lagu yidhi laba shayba lama ooyey buuhi horta iga qora laakiin laba camal oo maanta iga go'aya oo dib dambe u arkayn baan la ooyayaa buu ku yidhi labadaan la ooyeyn baan nii sheegi buu yidhi cabsi aan aakhirada ka baqaayo lama ooyaayo adduunyadan aan ka tegaya jacaylo aanu qabana lama ooyine laakiin laba camal oo adduunka dusheeda aan ku qaban jiray ayay haddaan maanta aan dhinta iga go'aysa buuhi waa labadee alsawmu fi alsayfi waalqiyaamu fi alshitaa xilliga dhulku uu kulul yahay soonka aan soomi jiray iyo jiilaalka dhaxanta salaataleylka biyaha qabow aan ku weysaysanaya dhaxanta dhexdeeda aan ku tukanayay labadaa camal baa iga go'ayso dib dambe aan u arkayno labada aan la ooyey waa labadaas ogaada buu ku yidhi wakhtigoogay ka faa'iidaysteen intay adduunka joogeen alsawmu fi sayf kulayl dhulku markuu yahay soonka iyaka u macaanaa shalay toole iyo laba cishaan iminka hargeysaan la joogaa maanta la 3 maanta dhulku waaba yar fiican yahay laakiin labadan cisho hore u yar kullaa
laakiin annagu markaan Jabuuti ka imano Hargeysa kuleylkeegu annaga wuxuu noo xisaaban yahay qabow oo dhareer Hargeysa waxa dhulku waa kuleyl maanta markaas aan ku war kuleyl ma ahayna kuleyl inuu ma darkin Ilaahay ka magan galo kuleyl Jabuuti wuu yaalaa iyo Boosaaso iyo Berbere 32 buu ahaa ama 34 meelahaas halkan markuu 34 36 uu yahay Jabuuti waa 46 halkan markuu ininka cagacageenaya 30 Jabuuti waa 40 ama dhowr iyo 40 buu cagacageenaya halkan markuu 37 gaaro Jabuuti wuxuu gaaraa 49 buu gaaraa haddana waa la sooma ninkaas caabidkan zaahidka ahaa ee taabiciguna waxa uu leeyahay maanta hadday naftu iga baxdo laba camal oo iga go'ay baan dib dambe u arkayn labadaa dartood baan la ooyayaa waa labadee kulaylka aan xagaaga aan soomi jiray asoomu fi sayf iyo jiilaalka dhaxantu markay jirto salaata leylkaan u kici jireen tukan jireen baan dib dambe u arkayn buu yidhi ragaas waqtigay garteen qiimihiisa لأنه يكفى يستعين ثابت البناني رحمه الله تلميذ وحوها أنس بن مالك باكو رجل دويبة دا بدير باتهي بكو رجل ثابتو هذا نبي محمد كو أركي لهانا والله واكو جعلان لها بكو يدي إدبتيس يورعيس يتقوديس يعبادة بنديس يفهمجيس يسدو علمك وقرب يا صحابة مركو أركي والله هبو نبي محمد كو أركي لها واكو جعلان لها بكو يدي مالنتو ثابت البناني ودمن دونو أيا إنك سيبا دولي مدي لأن مركاس أقول لك إن توحيدك سأل الله أقول لك أنا قفت مركو دمان ده لا ورن مايو والله قدول دواقع لا إله إلا الله والله ما غشينا يا مركاس سو مركا كاقد بيدا إنك زمن كينا نشا خاير اخترده زمن كان إلهي كبر ينا تقول دمتان بولي ها توحيد كاد مدابين لك على دقال لما يبولي وايو مر اللي مركو قفكو عيار كان انه سنكراد وياهي هل كان يوحكي قلينيان وهل كان يكدلوا لينيان وسنكي وحكي قلينيان هل كان يوحكي قلينيان الله كاس حان كان يوحكي قدع دعنيان لبضان يكدلوا لينيان حقو توحيد بكاه ليلي قصة وضع وضع قشنه نبا يري إلهي كما قال ابو دختر هذا الزمن كنا تقول متان كالله بري بولي وآفو وعقوبة بولي رمتي ثابت البناني إساقا أو سكرات كي ونكيس لدو لمدو كيري لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ساسوك أبو إنك يجيو وردك يجي أنا آخر سنجري أيان كو مشغول سنة هيك مشغولين بوكيدي يعني القرآن كي الراتب كأنو لها مالي والبين أنا خرجته والله شو ذا ترتيب سنة ديك مالي والبقرآن كي إن بك آخر السنة أفرد 10 مر ختمين غرصد 11 مر ختمين مركا ورد جيجي أنا خرنجري مال الله أهابا كم مشغول سنة هيك مشغولين بكويري يسوق القرآن كيس آخر السنة النفط ويكون عظيم الليل كل مرء يبعث على ما مات عليه قفك السنة مالك ودمنا يوحي وكدل دنتي أي قيامة الله صبح دوناب النبي قول عليه الصلاة والسلام هدو قرآن أخرنا أسقى قرآن كأخرنا يبو صوب حياة هدو سجود سنة مركي نفتو أي كب حدي أسقى سجود سبو صوب حياة هدو ذكر السمين أسقى لا إله إلا الله بو صوب حياة هدو جهاد كل انتي أسقى ديكي وكدا دينا يو ديكي وليبا وقويا هي أيو صوبح دونا نم والبا وحا وكل انتي مركو لمن أيو قيام الله صوب حياة أبو النبي عليه الصلاة والسلام حال مركب ما أنت لا دمنا إن شاء الله لا إله إلا الله دمنا وإن شاء الله هذا حال دمنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من قول لا إله إلا الله لكن النبي يقول أكثروا واربديا جددوا إيمانكم إيمانك جديدية مركب الصحابة دوران يا رسول الله إيمانك سيدنا لو جديدين يا مركب النبي يقول عليه الصلاة والسلام أكثر من قول لا إله إلا الله هذا قولك لا إله إلا الله بديع كعل علي أبو رسولكم
waxaad carabkan kaga celcelisaa qalbigu gali waxaad dhegta aad ku badisaa maqalkeeda qalbigu gali waxaad isha daymashadiisa ku badisaa qalbigu ayaa duubayo qalbigu degi waxaad inta badan aad ka fikirtaana qalbigu gali doona qalbiga lidaalika dadkii hore quraankaasay akhrin jireen bisha ramadaan waxay uga faa'iideysanayaan bisha ramadaan ay u arki jireen inay bisha dambe ramadaan sanadka dambe aysan gaadhaynin waa noolaan doonaa maaha waxay ku xisaabtamayeen iyaku baritoole weeyaan maalintan dhimanaya kun fi dunya kaannaka gariib aw caabiru sabiil nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii ibnu cumar garbaha intuu nebigu cabdullaahi ibnu cumar intuu qabtay ayuu nebigu ku yidhi kun fi dunya kaannaka gariib aw caabiru sabiil buu nebigu yidhi yaa ibnu cumar adduunyada dusheeda waxaad ku ataa qof gariiba gariib waa maxay waa qofka dalkiisii aanan joogin dhulkiisii ma joogin magaalada musaafir buu ku yahay dantuu u yimid inuu ka dhammaysta mooyaane deg ka fikeri maayo meel qabsa ka fikeri maayo aw caabiru sabiilkuna waa maxay waa qofka hilin wadda maraayo musaafirka ibnu cumar hadalkaa markuu nebiga ka maqlay wuxuu odhan jiray naftiisuu ku odhan jiray idaa amsayta falaa tantadir isabaax haddaad galabaysatid waa beri ha sugin haddaad waa beriisatidna galabaysi ha sugin intaad caafimaadka qabtana uga faa'iidaysa intaanad bukoonin inta aad nooshahayna uga faa'iidaysa intaanad dhiman waa meesha innaka iyo asxaabta nebigu aan ku kala duwannahay iyo ku xadiis markay nebiga ka maqlaan xadiiska muraayad oo kale intay ishordhigaan ayay markaa nin walba xadiiska isku eegayey ma ku camal falaya mise ku camal fali maayo xadiiska noloshayda ma yimid mise ma iman ma ku dhaqmaa mise kuma dhaqmo aayad quraan hadday nabigeenna ku soo degto aayaddaas saasay isku hordhigi jireen iyagu marka barritoole ha ku xisaabtamayna maantaad adigu leedahay ka faa'iidayso kal dambe ramadaanka kal dambaan gaadhaya hays odhan bishaa ramadaan ka faa'iidaysa maxaad kaga faa'iidaysanaysaa qur-aanka akhriskiisa badi maxaad kaga faa'iidaysanaysaa dadka muslimiinta iska cafiyo iska saamax maxaad kaga faa'iidaysanaysaa haddii hantiile ilaahay uu ku siiyeyna hantidaada bishaa ramadaan dadka ducafada wax uga qabo oo dadka ku afuri habba timir haddaad hayso walaalkaa ku afuri kabasho caanaha oo la kabada haddaad hayso walaalkaa ku afuri ajarkiisii baad la qaybtan buu nebigu kaa yidhi soonkaaga ilaasho oo ka ilaali laqwiga oo ka ilaali xanta oo ka ilaali cayda oo ka ilaali beenta oo ka ilaali meesha xunaad fadhiisanayso oo ka ilaali waxa xun la daawanaya maanta man lam yadac qawla الzuuri wاlcamala bihi falaysa lilaahi xaaja fi an yadaca طacaamahu wa sharaabahu markhaati beenaalaha ninka maragga beenta aanan ka tegin buu nebigu leeyahay iyo camalka sharcigu inkiray ninka aanan labadaa iska daynin buu nebigu leeyahay aaraad iyo gaajo inuu isku dilo ilaahay danka male buu nebigu gaajadaada iyo oonkaaga ilaahay wax danoo ilaahay soonka dhanba ilaahay dan uguma jiro soonku aduu dantaada weeyaan salaaddu waa adiga dantaada soonku waa adiga dantaada cibaadadu waa adiga dantaada quraan akhrisku waa adiga dantaada zakadu waa adiga dantaada xashku waa adiga dantaada fadhiga miskiidku waa adiga dantaada diinta barashadeedu waa adiga dantaada man camila saalixan falinafsihi camal wanaagsan haddaad ka shaqayso dee naftaadaad uga shaqaysa waa naftaada cidaad wax u qabanaysa ma jiro marka ilaahay haddaad ka soomaynin ficilka xun iyo qowlka xun iyo dadka xun la fadhigooga iyo meesha xun ee la fadhiisanaayo iyo markhaati beenaalaha maragga beentaad furayso haddii intaaba aad ka soomaynin wixii la halmaala arraad iyo gaajo aad isku dishaa wax ilaahay casa wajalla maaragtaan uu kaa abaalmarinaya ma jirto soonka ilaali markaa wakhtigaaga ilaali oo camal wanaagsan ku ilaali oo bishaa ramadaan bay culimmadu leeyihiin ilaahay wuxuu yidhi marka uu ilaahay le lacallakum tattaquun taqwad baa la dambaysiiyey
yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahay nebiga rumeeyey iimaan baa laynoogu dhawaaqay oo muuminiin baa ilaahay yidhi waa muuminiinta lala hadlayaa soonka waa lagu farad yeelay maaha idinkoo keliya dadkii inaga horreeyeyna waa lagu farad yeelay gaayaha soonka laga helay waa maxay natiijada soonka laga helaa waa maxay shahaadada soonka laga helaa waa maxay ee laga qaataa waa taqwad baa laga qaataa alla ka cabsi bishan taqwad inay ziyaadaan la doonayaa markaas taqwad goormay taqwadu ziyaadi waa marka bisha Ramadaan adigu aad samaysatid jadwal nidaam samayso بولوجرام قف وعينه سميست برنامج وقت قاعد هذانا الجدول أنا سميسنا وقت قاعد أنا الندام نول الشهادة وده واحد كوجري سخال خلبه كوجري إلى عيبان نول الجدول سمي صلاة دي شو وقت بالغو سمي وجدول يومي صلاة قارنا هبين كيف يقلان قارنا مالين كيف يقلان إلهي وكوغ يا مركا بيزي أتو مشغول أتو بني آدم أتو هنتي هؤلاء يا مشغولية دي أبدي مسؤولية كل صارت عي صلاة دي والغو كلا ديري بلو فيرسو فجر كي الظهر كان تا وقت ولا حيس ظهر يا عصر انت ولا حيس عصر مغرب انت ولا حيس مغرب عشاء انت ولا حيس عشاء هذا مرة ثانية فجر وقت انت لك بقول حي وقت جاي قال له حددي صومك وقت بالله سمي ساعد لا ساعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس حشي وقت بالله سمي مالمولية حشنا وليال 10 مالي زكدي وقت بالله سمي حول سند ولما معيار قونية مركيتها مقدار قونية إلهي بان ولش الجدول كوغو سمي هادغنا واينا مالين كي جدول كاغا واينا جدول كاغا مالين لها وانا سميستا خليغا وا صلاتي خليغا وا قرانكي خليغا وا استغفارتي خليغا وا خدمتي ريركا خليغا وا نصشدي خليغا وا والدك اديغوغي والدك اديغوغي لو اديغ والدك خليغا وا تراويح دي من قام رمضان وخصوصيات بشهر رمضان أيلانا بشهر رمضان تراويح بالله سعوتها تهجد قاري بشهر رمضان لا دحي من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بشهر رمضان نيكا كعب والنبي يقول يا كعب مساعد قال تقول كنيسد سديد بالغوتو كذا يصدح وتريا لا دميسو مسكيتك حافظاده u dhow 23 بالغوتو كذا 20 تراويح يصدح وتريا لا دميسو markaasaad helaysaa man qaama ramadaan fadaa'ilkeega ramadaanka ninka kacab uu nabigu leeyahay qiyaamu ramadaan waa taraawiixda ninka kaca ama waa tahajjudka ninka kaceetu kada buu nabigu leeyahay dambigiisii hore dhan baa laga dhaafaa buu rasuulku waa ninka kaca culimadu waxay xadiiska ku sharxeen ومساجدك كنت كنيس إمامك لك صلاة الله ما يسمر كليه يسقى هكبحن نحن هكجتجن رمضان كأول كيسي ما قالوا كراتشي لنا وقصص صوم صدح حافظون بالمركع يعني صدح مسجدا ولا صوته قيادتك اللي مركز سفرتين وين هذا يكتب دتك محاين ديريهين إنكونا محان ديرنا هاي حاكا في عنا هاي محاي سيكونا نجا في عيهين ضل يرتي ما نقول صدح حافظون صدح مسكين وصدح حافظون كنت على صدح ذهب بينك لجيه مساجد جابين كور رسالة جيه صدح يلا واتن بلوتو كناي ولا تكلي صلاة العشاء معنا جوال مركز لقى بحي ما لها ضد أفر أما صدح قفوا وضياله دعوة وين وكذا أن حجسين كريم باكعضي مركز شاي قلت كذا واسكب حين مساجد كاس جوديه سؤوب بوحة دار الدمر أوب بوحة جيده هي وضوينك أكتو دنا بلال صل أو أنت والله نجيب بوحة لا صدح يلا باتك الركعة المرأة اللي مركز الله ركعة حاجة ضمان إيجا وبوحة مسجدك هل قفكم مبحاي
صدح يا الله باتك إمامك الله لما يستاهل حدنا أبيك يا الله وحيجي المساجد كوب يتبرك على لغته كنايو ونفير صدي عشاء جماعة كبح حنوان يا المساجد كوب بوب ما مسجد أنت لك ولي بالك والجوامع صدح طبقة أفر طبقة دي بدأ مركع أنا وحنا كنت كذا جودة هران وشي تجا حاجة بان إيجي برنددي ويب بحدا دوشي ويب بحدا لين عول ويب بحدا كوبي طبعا كير ركع عضاد أيضا ملاها ضد يرو ده إسكال عذر دار لا أي كب حين مويانه بقول كي سيقال إيه سجاش ضد كي مصلين تا إيه صلاة دي عشاء إمامك الله بلا بولا ما يستاهل هذا روح أنا يجي بعد مسايتي كلا صدحات صدح الله باتبع يلو قلت كني سيدي يسلم مدا مركز كان كنت كذا حاليا هبين هر الله هبين نشوف واقع عشاء يجي مركز لقى بحاجة كلا بدنا مسكيت كيبح سيدي ركع مركز لا تكذا كلا بدنا بح لا باتنك قدام بيسمان يجي مركز وصف يبدأ بخصوصه صوبحني صلاة مركان لما يسلي دي بدنا صومر لما قال هذا حقا دختر باير تجو وف كجرو عن ديرين هالك عقوين مو دختر كهالك ما قال دي بانو فرصة ساسا درجة الله فديا ومضى يعني بس مضى يعني وبشيء رمضان waxaa laga yaabaa ilaa 12 ilaa 1 habeenimo dadku dariiqa inay fadhiyaan sheekayaan maxay ka sheekaynayaan shaqaal loo diray bay ka sheekaynaysaa Soomaalidu magaalada aan sheegayo waxa ku nool 30 milyan oo qof ku nool magaalada Karachi leeyahay xaafad kaliya gulshan iqbaal leeyahay waxa ku nool bay dhalinyartu ugu yiraahdeen 12 milyan وأنا في رسالة مر عليه مركان زايد علماء الإمامية ديان اسبرنا هي يوديان من أين مركز أقول من جيبوتي مركز جيبوتي وحقي جيبوتي ما قرنا يا وقتها مركز صوماليا دجال كانوا قبرت وقتها هذا صومال صومال معروف صومال معروف ما قال وأنا في رسالة وحال إلي ونيو جغرافيا ما برتان مد بيقولي ما يدت كان قوت اليوم كوغا إني الريتان مويانه وحا أدوك كدعك ما بها لرين ورستان إنك أنا الصومالي هي حبرت أقل كفرداء سياسة العالم كلا صعود ها قدرت بالشك دلان با قدرت دلان فراغا إن دلينك قعن بناني بان هينا وقت جيني مركان الدنيا آخر الله بديك كفا يدسويني وحا شيطان باين ودرت عالم كاين الله صعود وحا كدعايا واحد دنت هذا ما هنا العالم كلا صعوطها دنت هذا ما أقل كاغا وحا كدعايا الله صعود انت العالم شكينيس أقل كاغا الماء بالشهر رمضان امسي قرآن أخريين تراويح ما تكدان حاسكي قبله تراويح أقل كما كنت كدان تاسال الربيلات كشغي صادوه داد كان اد مسؤول كتا هيبا الله دونيا إن اد بشا وقفا إيريسد وويلاش هذانا قعمها سوق بطول مسكيت كآتر هذا ورياء تراويح دي يقول قرب تكدو إلا دمشت إسلام دي هبلها أنا تكتر هذا إنو قرب مسكيت كعقها وينك كاليا انتاد واتاس وها عالم كدعايا عيناد مقاحياك كشي كيسا دانت هذه ما هنا وضلان شيطان كاسده كبده انو عياريا مانتا انك marka Allah inuu dum dhaaf danteena Allah inuu ka rasiyo marka bisha Ramadan insha Allah dhaadina ka faa'iideysana Saudi Armenihin taraawixda habeen walba inaan dhameystirno quraanka maalintii juz quraan akhri dan haduu kugu adiga juz sida bisha Ramadan mar u dhameys hadaad kareysan labo hadaad kareysan saddex hadaad kareysan afar shan juz intee lagu aqri karaa ma taqaanaa waa saacad iyo 45 daqiiqo shan juz way kula badan tahay adiga shan juzayna kula badnaan hadaad waliba si yar oo tartiib ah aad u akhridina waa 2 saacadood oo kaliya hadaad dadaashid quraanka subaxda hadaad balowdid waxaad dhameyn kartaa salaada maghrib haday habad iska badaan maalintii 2 juz ama 3 juz tobanka cisho mar quraanka khatim tobanka daba markuu soo galana yar kordhiyo maalintii 5 juz oo quraan akhriyo
لحدي عشر مر قرآن كدمي إلهينا بري وكدو عيسو القرآن هو كلام كيسية من قرأ القرآن فليسأل الله به النبي عليه الصلاة والسلام مهداد ورنيك قرآن كبرتيو إيه قرآن كآخرين يو قرآن كإلهي وحكوه يديسم النبي يقولي آخر الزمن كدد بائمن دونا قرآن كإيتي برتان دادك وحكوه يديسم دونا أبو رسولكم قرآن كواحد لو سود جيي إن أيال لغو بريو إن إلهي لغو بريو إن إلهي لغو دوادو إن إلهي لغو رالي قليو هذا القرآن كآخر ستد حديث كواحد لغا فهميا هذا القرآن كآخر ستد وقرآن كمرقات ختمت دعاء ستد دعاء دا سوا مقبول بلغا فهميا حديث كاس من قرأ القرآن فليسأل الله به بنبي يقول نك قرآن كآخريا قرآن كإلهي هكو بريو هكو يديستو نك قرآن كدد كبرنا قرآن كددك يونا كوي دي سنينه قرآن كإلهي وحكوي ديستو هيدا له إلهو كلام كاجيبا أنو قددك أنبرا ياي أرزاقنا أدو قدي واسع سجى إلهي مرك أرزاقنا كو واسعين إن مساجد كو نجاتا وحيابها كوف ضيدين يبي كمتها بشر ربنا كيف يدست هذا نقطة حمامة المسجد حمامك مرنا أوفوفا مرنا قفص كسوك جراه مؤمنك وعينك مرنا صوف أرزاقات حلال يا رزاق يا فتاح مركز صورة وحدنا مساجد كصوغل من عصر كصوغل لما الظهر كصوغل إلى يتراويح لهلك كنا معيسو شيء جزء قرآن داخلين وإلى شهادة نسان فريسي أبالك فريسو أنا آخر وأبشي قرآنك مساجد كأول لقونا قاعدة وأسبابتك كوف ضيدين يسئين البشر رمضان كيف يديسين ويديع علماء مبطلات الصيام حاسون كجبينية حاسون كي يقول ضاوعي كرا أجر كيس تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بشني ما دام الصوم فريضة شرعية والنقوية هي وفرضنا الحنبار سنتهي مسائل العلم إلهي علماء ربانيين أيا إلهي مساجد ونودح دقية علماء كل نقض ويدية وحيق كلا ساري ويدود علماء ويدية على جهل الإلهي هكو عبد وأنا تكون عبد إلهي على علم إن على علم الإلهي كو عبدانا وأنا يسألونك وأنا نتم هذا يسألونك وصفة الصحابة إلى هايان نك طالب العلم يقولوا حشودا معه وأنا علماء ويدين وأنا وحبرته لبن إنه وحما برتان بالليلي وفق الدين تسكويني سيد هذا منو أنت الله يقبل الدين هذا شيخ وحويدين يدتك الدين برشاد هذا كحشودا لبن وحما برتان بالليلي وحكى له بشار رمضان لأن قدونا يا إن دتك مسلمين تؤيس السامحان صافي لأن النبي عليه الصلاة والسلام وكيلها مالك كستو إسنينا هي مالك كستو خميس أعماش أضمه أي قبطان ونكسب إله الهرجية لبا والله سعليا دم بيقول لما ضاف كي مد وكيله وشريكي والعياذ بالله منا وحويان والله بدي عملنا وحويان والله بدي نين يدحدود أي جرت عداوة على الحمر أورك واحد اسكوجو هيين لبدانا إلهي وحنا هذا كتاب كوك أكتدها كفرنا علي عمل كوك الدم بيقول ضاف مايو هاي إلى دحدود إذا سوى فينا إذا سوى سامحيان كادت بالغا يا بايني جاركين أصحابتين هذا اللي نحمري حكا مسنان وتجو واحد كتر هذا ولا وانكو عفية أنا قلنا أدونا سكي عفي هذه مركز سكو أوكو ديدو هذه مركز حلكو وكاوريجا أقول هذا عمل كاجو وصعون يا إلهي حديث مركز عمل كان إلهي نوجا أقبله بشهر رمضان دعاء الله نوجا أقبله صلاة الله نوجا أقبله صوم الله نوجا أقبله قرآن كين الله أقبله صدقة بحنين الله أقبله إلهينا النار توي نوجا حريو وأين عندك مسلمين تقول عليهنا قلبنا كسيدنا إن شاء الله هذا بس سامحنا كل جيل كي أد قاري كرتد عفي والعافين عن الناس دتك هذا اسكعف دي هذيك إلهي ما كوجع المركز والله يحب المحسنين تاع المركز كبيري عفس عيار ما والصفة إلهي ما كوصفه بالصفات العفو
وأسماء إلهي سوما غفور يا عفو وحال دار بالعلماء دوليهن عفو حال دار غفور ودافع عفو ومحي وندافع دب دنبنا وحا ودافع كوسو هذا القادم ما يبالي لذلك هنسى سامحنا سيدنا كريم بني إسرائيل مال قبينك النبي قال الشيخ عليه الصلاة والسلام من عجيبة إن مال إلهي سيء أولاد بو إلهي سيء عافمات با إلهي سيء نعمة دي أدونك إلهي دين عوال باو كدقي لكن النفتي سكو إسرافي بوها مع عصبنا هل وناقوا لها محوها دادكو حول الديمين جري دادك الدينك مركا وحي علينا وكقادا جري وحي الدينك علين كريواينا وإسكع في الجري وحي مدد النوكر بكود هذانا وكردين جري بالي مال انتو دمان ايغو انمديسه kala dardaarmo yiri anigu wax wanaaga oo ilaahay aan la hortagiyoon haysto khayra ma jire dadka aan wax siin jireen wax deymin jirnay sidaan ula macaamaloonay ula macaamulada buu kaydi ki mudada noo kordhin ilaadan u kordhiya ki iska bixin kari waayeen iska cafiya ki soo celiyana arka sidaas anigu ogahay oo dhintay ninkii ilaahay baa la hor joojiyay ilaahay baa ku yiri adoonkan u nicmeeyay ma tihid إن أولاده وقول نعمي إن عافماتك وقول نعمي إن رقالها وقول نعمي إن برواقته وقول نعمي ما أنت محلاتي بدأ بالشيء أحبا نعم تادي أوردن أدقى كوكو عاصية وخير وطوئقه الريانا مجرو وخير أنت هذا صوتك ما قرنا يا إله مرقاسا إلهي أدونك هدنا متهد أدوما هاي قد دايمين جري سدا ولا معاملون جري وانا هاي مال انت دمنيسي أدونكي إنما دي سدردارنك أوغي مدير أدوما هدينك أن سينو وحي علين كري واي اسكا عافية يرين متهد أنا واكو عافية جنة قلب إلهي كويري عيار مها مركز ونسعى فينا إن شاء الله ونسكد دعينا سو ديار منهن حلقة أفركو ودوية هينا dadku xilligaas qaflad badan bay ku jiraan waa marka shantii barka ay gaadho aadaanku ka dhiman tahay 45 daqiiqo ama nus saaco ama 10 iska dheer xilliga ducada waa la aqbalaa kulligan baahi waan wada leenahay Soomaa nimba meel baa laga hayaa nimba meel buu ka taahaya nimba waxba ka maqan uu doonaya in loo dhameystiro baahidaada ka dabooli kara waa Ilaahay mid kale ma aha وأنا أوقاتها ساعد إلهي لهلا النبي قال شيء ساعد داسو النبي كايد حين يفطر للصائم بقى النبي يقول دعوة نك صائم كأي صوما دعاء لا أقبل أيها السجنات حلما حلق أفرك ودويه أفرك ذل جوه حلقاس قبل ذا وجهه دعاء ذا مركز دعاء سنة يسوع أما أنت إلهي كبلا صلى النبي قال حجيسي صلى الله عليه وسلم دعوي كان واردة قرآنك إلهي وكجور رمي دعاء أنبياء قرآنك كتها الله تاكو دعيس دينا دعاء النبي محمد وكدو عيسي هذانا راعي وكدو عيسو هذا في عربي وكجو هذاك يهينا أف صومالي قال إلهي واحد دون تخير كوي ديسو إن شاء الله أفركم مركو سود وعلنا وحلقوا أفرم النبي والوحى وقفي عن وتمر هذا تمر ويدانا وبيها عن لبدا سبعة في مادة كجري وقادا لبدا نبي محمد وكوشا عليه الصلاة والسلام داودي وحي ما أنت نفقات جركاك كب حي أوردن تمر تامر كيف سوء علينا هدي أدوية أبو نبي ولد تمر حصوات إيه يروح حقها يروح بيير هذا بيويدان أبو نبي يقول هاي مركز صدحات كم شيء يروح عنا تذكر بس أبوسكم بالله لا يدعركم ولا كعب وارهكب بالأهل سابوسين صدح أفر تمرة هي حقها الله كوب بيسفي عنه عنه واللي بيها قبو يادو قبو اسكي لاليه بيها عادي نورمال كيس كعبه
dadna ilaahay ha ka daweeyo bahalkana sigaarke markuu kobashad biyo markuu ka badaba xabba sigaar u shidan allah ha ka daweeyo dadkaana waxaan ilaahay uga baryaynaa bisha Ramadaan waxaa xuna qurunka ilaahay inuu ka raaciyo aamiin dhahada insha Allah intaasaan insha Allah wixii ilaahayna waafajiya ku soo gaabinaynaa dambigeena Allah ha dhaaf dambiga waalidiinteena Allah ha dhaaf amnigan Allah inoo adkeeyo dhibaatadii waaga dhaweetay nagu dhacdayna ilaahay badiil ka khayr badan Allah inoogu bedelo badiil ka khayr badan Allah inoogu bedelo كل خير بالله إن الله دونا إن شاء الله هذا خير بالله اللي قرر جيا أذكى الذين قرابة هنا ولا عليه هنا مصيبة واجد وتأكل عضي إلهي وحنا كبر إنه عوض خير بني إلهي وقبدله دم بيجنا الله داف تبضلوا الذين حنوصا باجري والدعاء دونا إلهي مدور بالو كبكو عافما سريع الله كسي يمني ما كان الله نوزيادي muslimiintana meel joogan muwaafaqeen midniman Allah siiyo habeen walba wuxuu ilaahay leeyahay adoomo naarta ku xoreeyay kuwii naarta lagu xoreeyay Allah inaga dhigo isma hadeen kar Allah ina hadeey Allah inoo naxariisto Allah inoo dambi dhaaf dad badan oo deyn lagu leeyahay jira deynka Allah ka bixiyo dhalinyarada wiilal iyo gabdhaha Allah inoo toosiyo diinta iyo taacada Allah inoogu toosiyo adduun iyo aakhiro ku liibaanana Allah inaga yeelo sallallahu alayhi wasallam مولانا أبو